suuqyada muhiimka ah ee bulshada degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ay ku shaqeysan jireen sida suuqa qudaarta, kawaanka hilibka oo burbur xoogan laga dareemayay ayaa maanta waxaa dhagax dhigay maamulka gobolka Shabeellada Hoose kan degmada marka si dhismo loogu bilaabo. Dhagax dhigga kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maaliyadda gobolka Shabeellada Hoose Mayow Xaaji Mustaf. Waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in ay maanta dhagax dhigaan goobaha bulshada oo muhiim u ah bulshada degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose, isla markaana ka maamul ahaan ay xoojin doonaan sidii sare loogu qaadi lahaa mashaariicda degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. marka aad iyo aad la soo dhaweeyay aniga iyo gudoomiyaheena iyo gudoomiye ku-xigeenadeena waa ku mahadsanyihiin dhammaan shacabka iyo maamulka degmada soo dhaweyn kadib haddana waxaan aad ugu faraxsanahay hal habeen kadib inaan ka qayb galo mashaariic lagu horumarinayo degmada, maamulka degmada iyo kawaanka degmada marka oo muddo 30 sano sida uu sheegay gudoomiyaha degmada aanan helin wax daryeel ama dayactir aanan helin inaan dhagax dhigno aniga iyo mas'uulka ugu sareeya gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenada inaan ku soo qayb galno oo shacbigeena wax qabadkii ugu horeeyay ma ahane mar walba soo noqdo mar walba loo baahan yahay in mar walba wax qabadka maalin walba in la arko in wax la qabanayo wixii la qabanayo maalin walba inay arkaan haddana maantana indhahooda iyaga ugu jeedaan oo na daawanayaan dhammaantood sida ugu badan kawaanleyda reer marka khaasatan marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in laba meelood maamulka iyo khaasatan magaalada marka maamulka xarunta maamulka iyo kawaanka in maanta la dayactiro aan dhagax dhigno marka aad ugu faraxsanahay farxadda lama soo koobi karo marka imaada inaan horeyba mashaariicda magaalada marka in la dhagax dhigo inaan ka soo qayb galo aad ugu faraxsanahay. sidoo kale waxaa goobta ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellada Hoose Maryan Mukhtaar Wiilow oo sheegtay in dib loo dayactiro goobaha bulshada iyo xarumaha dawladda ay faa'iido weyn u tahay iyadoo ka hadlaysay suuqa qudaarta ee degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. dhagax dhigga kadib ayaa waxa ay ururka haweenka degmada marka ugu baaqday inay ka faa'iideystaan kadib markii la dhameeyo dhismaha suuqa qudaarta degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. anaga ku sugan magaalada marka oo nabad ah oo sharaf iyo karaamo ay leeyihiin marka alxamdulillah waxaan ku faraxsanahay maanta waxaan dhagax dhigaynay suuqa qudaarta magaalada marka runaantii dad Soomaalida marka la dhex joogo suuqa qudaarta iyo maxaa la yiraahdaa wax badan gabdhaha ku ganacsado marka suuqan in gabdhaha reer marka oo kuwa oo qudaarleyda ah loo dhagax dhigo maanta oo loo dhiso oo laga kiciyo fadhiga oo dhulka ah aad ugu faraxsanahay alxamdulillah. kulay gabdhaha waxaan ka rajaynayaa iyaga inay ka faa'iideystaan suuqa la dhisi doono inay kaabaan dadkii ay wax u sameeynayo dhisaayo aysan dhibin hadhowna maamulka degmada waxaan ka codsanaynaa inay si qurux badan ugu qaybiyaan dadka marka meesha loo qurxiyo loo dhiso qof walba gabar walba ay hesho miis qurux badan maasha Allah. marka waa ku faraxsanahay anagana hadaan haweenka gobolka waxaan ka codsanayaa gabdhaha ama u sheegaynaa inay ka shaqeeyaan nabadda iyo maxaa la yiraahdaa isku xirnaanshaha shacabka magaalada marka iyo horumarka iyo ganacsiga iyo maxaa la wax walba qurux badan oo socdo magaaladan wax fiican u sameeynaya inay iyagana qaybtooda ka qaataan si maxaa la yiraahdaa ay shaqo u kordho ganacsigan iyo lacagta magaalada soo gasho si ummadana wax loogu qabto insha Allah. alxamdulillah aad faraxsanahay gabdhahana waxaan rabaa inay ka faa'iideystaan waxyaabaha quruxda badan oo loo sameeynayo ay nala shaqeeyaan maamulka iyo ciidanka iyo maxaa la yiraahdaa qaybo kamid ah oo wax walba oo wanaag sameeynaya insha Allah. dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay dardar gelinaysay sidii dib loogu habeen lahaa goobaha muhiimka ah ee bulshada degmada marka iyo xarumaha danta guud ee degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Aweys Muumin Xasan Aweys Okay, raadiyaha iyo telefishinka Koonfur Galbeed magaalada Marka.